bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wanaagsan daawadayaal waa ayaana geedii afraxood idinla socodsiinaya wararkii ugu dambeeyey arrimaha Soomaaliya iyo caalamka qodobada aad waddanka TV ku daawan doontaana waxa ugu dooron madaxweyne Farmaajo oo shaaciyay inuu ra'iisul wasaare Roble gudan waayay waajibaadkiisii kuna baaqay shir degdeg ah saxaafadda Turkiga oo hadal haysa magaca iyagu leeyihiin oo loo bixiyo haweenka Soomaalida dawladda Soomaaliya oo tilaabo culus ka qaaday howlwadeena ka tirsan qaramada midoobay iyo AMISOM qalad ay ku kaceen hal natiijo ah oo soo noqnoqota ayaa ka dhalata nidaamka soo kali talisnimo ku dhisan saadaal uu 1953 sheegay wariye Talyaani ah oo ilaa iyo maanta ka taagan Soomaaliya xog badan oo ku saabsan imaamkii Soomaaliga ahaa ee meedkiisii laga helay magaalo ka tirsan Mareykanka iyo sanadka 2022 oo ku bilaabanaya dhaawacireed dhulka u soo dhawaanaya mid soo dhacay 2013 qodobadaasi qodobo kale ayaa waddanka TV ku daawan doontaan taariikhduna waxa ay ku beegan tahay 16 December sanada 2021 imikana u diyaar garooba iyaga oo fidsan aynu ku bilowno marka hore madaxweynaha ayaa ku baaqay in ay kulan degdeg ah isugu yimaadaan madaxda maamul goboleedyada dalka iyo gobolka Banaadir si looga wada hadlo jihaynta doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo markii uu dib u eegay xeerkii madaxweyne ee uu ku magacaabay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble oo lagu faray inuu dhiso xukuumad tayo leh oo dalka u horseeda doorasho nabdoon markii uu arkay heshiiskii 17 September 2020 ee ay wada gaareen maamulada federaalka ka midka ah iyo dawladda Soomaaliya iyo gobolka Banaadir kaas oo baarlamaanka labadiisa aqal ansixiyay madaxweynuhuna uu ku soo saaray sharciga lambarkiisu yahay 30 markuu arkay habraacyadii hirgelinta doorashooyinka iyo xeerarkii lagu dhisay gudiyada heer federaal heer maamul goboleed iyo gudiga xalinta khilaafaadka ee soo baxay 1 October markii uu tixraacay khudbadii uu madaxweynuhu ka horjeediyay golaha shacabka 1 May 2021 taasoo mas'uuliyadda hogaaminta doorashooyinka oo u egmaday ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble markii ay u cadaatay in 14 bilood kadib saxiixii heshiiska 17 September 2020 in aysan weli dhamaystirmin doorashooyinka dalka markii uu arkay inuu wasiirka koowaad ka gaabiyay hogaaminta iyo hirgelinta doorashooyinkii uu u xil saaray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya sidii ku cadeed khudbadii uu madaxweynuhu ka horjeediyay golaha shacabka 1 May 2021 markii ay u cadaatay in ra'iisul wasaaruhu ka leexday dhaabihii hirgelinta doorashada isaga oo kala dhantaalay wadajirkii gudiyadii loo egmaday fulinta iyo qabashada doorashooyinka kuna xadgudbay madax banaanidoodii shaqo markii uu arkay in ra'iisul wasaaruhu uu soo saarayo go'aano kaligiis u gaar ah oo ay ka dhalanayaan caqabado khatar ku ah geedi socodka doorashooyinka waxa uu madaxweynuhu xeeriyay qodobadan in ra'iisul wasaaruhu uu gudan waayay waajibaadkii loo igmaday ee ahaa hogaamintii doorashada ku dhisnay 17 September 2020 iyo habraacyadii dhammaystiray ee soo baxay 1 October 2020 madaxweynuhu waxa uu ku baaqayaa in la isugu yimaado shir wada tashi ah oo lagu saxayo jihaynta doorashooyinka kaas oo ay ka soo qaybgalayaan golayaasha dawladda ee heer federaal maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir si la isugu waafaqo hoggaan awood u leh hirgelin doorasho dhammaystiran oo si hufan dalka uga dhacda madaxweynuhu waxa uu ku baaqayaa in la dhageysto talooyinka waxgaradka siyaasiyiinta iyo bulshada rayidka ah ee qaba tabashooyinka la xiriira doorashooyinka si loo helo hanaan doorasho oo ku dhamaata jawi nabdoon oo loo siman yahay waatahay Soomaalida iyo Turkiga ayaa wadaaga taariikh ee soo taxneed 500 oo sanadood ka badan tan iyo waayihii Cusmaaniyiinta iyadoo uu Turkigu taageero ee aad ah siin jiray dagaaladii ee gobonnimadoonka ahaa sida kii daraawiishta sida lagu qoray Daily Sabah masaajida ay Cusmaaniyiintu dhiseen ayaa ku yaala min Berbera ilaa koonfurta dalka iyadoo ay taasi keentay in ay labada dal ay yeeshaan saameyn dhaqan maadaama ay isku diin yihiin wargeyska ayaa qoray inay Soomaali badani Turkiga ku nooshahay kuwaas oo ka kala yimid Soomaaliya iyo qurbaha waxaana ku jira xirfadlayaal ee sida dhaqaatiir injineero macallimiin ganacsato wariyaal iyo dadka hay'adaha samafalka ka shaqeeya kuwaas oo aad looga heli kara Ankara iyo Istanbul haddii aad doonayso inaad ogaato saameynta Turkiga ee Soomaaliya arag magacyada gabdhaha Soomaaliya ayuu yiri Axmed Cusmaan oo ah oday ee ku nool Muqdisho mid ka mid ah magacyada ugu caansan Soomaaliya waa Istanbul ayuu daba dhigay waxaan nahay dad uu xiriir diimeed ka dhaxeeyo marka waan ku faraxsanahay in dal muslimihi uu saameyn nagu yeesho
halkii ayna saamayn lahaayeen ee gumaysiga yurub ayuu ku dooday. waa tahay shaqaalaha qaramada midoobay iyo amisom ayay hadda kadib waajib ku noqonaysaa inay ka degaan terminaalka weyn ee garoonka aadan cadde kadib markii ay dowladda federaalku xirtay terminaalkii iyaga u gaarka ahaa kadib markii lagu eedeeyey inay dalka ku soo galaan iyagoo aan oggolaansho haysan amaba ay soo geliyaan waxyaabo iyo badeecooyin aan bawar loo haynin. wasaaradda dibadeedka soomaaliya ayaa warqad rasmi ah oo ay u qortay xafiiska UNSOS oo dhanka saanada ka caawiya amisom taasoo la diray 22kii bishii December ayaa lagu wargeliyey in albaabada loo laabayo terminalka Mofcon ilaa amar dambe. dowladda Soomaaliya ayaa UNSOS iyo amisom ku eedeysay inay dalka soo geliyeen saraakiil ku socda dukumeentiyo aan la eegin amaba aan dhammaystirnayn iyadoo saraakiisha waaxda socdaalka Soomaaliya loo diiday in ay kiisaskooda eegaan. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sidoo kale ku dooday in saraakiil booliis ah oo aan hubaysnayn iyo howlwadeenno ka tirsan waaxda socdaalka oo halkaasi la geeyey ay halkaasi ka soo eriyeen ciidamada amisom. dowladda Soomaaliya ayaa qaramada midoobay sidoo kale ku eedeysay in ay soo fasaxaan duulimaadyo aan ruqsad ka haysanin hay-adaha ku shaqada leh umuurahaasi ee dowladda federaalka sida iyagoo aan marin helinada wadahadal ee waaxda socdaalka. waa hagaag taariikh iyo dhacdo ee weliba xusuusteeda haweeney la odhan jiray ee Indira Gandhi oo 2 jeer ra'iisul wasaare ka noqotay dalka Hindiya 1966 ilaa 1977 oo ay jagadaasi haysay oo haddana mar kale noqotay ra'iisul wasaare sanadkii 1980 ilaa la dilay sanadkii 1984 ayaa buuggeeda xusuus qorka ah ku xustay su'aal ay aabaheed Jawaharlal Nehru mar weydiisay oo ay ku tiri aabe maxaa dhacaya haddii ciidamada milatariga ay la wareegaan awoodda ama xukunka dalka. mudane Jawaharlal Nehru oo ahaa ra'iisul wasaarihii ugu horreeyay dalka Hindiya oo su'aashaasi gabadhiisa ka jawaabaya ayaa yidhi ciidamada haddii ay xukunka qabtaan waxaa imaanaysaa taydaba ku soconaya iyo kalitalis dabadeedna burbur ayaa ku yimaada dhaqaalaha dalka. Indira Gandhi ayaa isla markiiba haddana tiri oo aabe haddii ay dhaqaaluhu burburo maxaa dhacaya. Jawaharlal Nehru ayaa yidhi haddii dhaqaaluhu markaasi burburo waxaa lumaysaa akhlaaqda dadka. Indira Gandhi ayaa iyadoo dhoosha ka qoslaysa ayay haddana tiri oo maxaa dhacaya haddii ay akhlaaqdu lunto. Jawaharlal Nehru oo jawaab siinaya gabadhiisa Indira Gandhi ayaa garaad sarreeya ku yidhi oo maxaa u haray dal ummadiisii akhlaaqdii dhowrsanaanta ah ka lunto. waxa uu yidhi ummad waa jiri kartaa haddii soorta iyo cuntada noloshu ay ku yaraato laakiin haddii ay akhlaaqdu lunto waxaa dhumaya kala garashada xumaanta iyo wanaagga oo damiirka iyo xadaaradii dadka ayaa markiiba burburaysa. waxaa meesha ka baxaya ayuu yidhi adeegsiga caqliga. waxa ay bulshadu noqonaysaa bahallo ka aradan akhlaaqda wanaagsan, dad cun ah oo ku xadgudba xuquuqda insaanka, sharciga iyo cadaaladda oo laga tallaabsado, been la iska kala sheego, indhaha faraha la iska geliyo, xusuulduub qaraabasho, ninba waxa uu heli karo, xatooyada xoolaha dadweynaha oo la xalaalaysto, dil, dhac, kufsi, duhur cad, la isu bareero iyo halyeeyadii waxgaradkii iyo waaye araggii oo dalka ka dhammaada iyo wixii la mid ah. waxa ayna ummaddaasi qarannimadeeda iyo noloshooda ay ku dambaynaysaa karaamo darro, baaba, xishood la'aan iyo fasaadka oo bata. ugu dambaynna dalkaasi waxa uu noqdaa kudaafad amaba qashinqub. waa tahay iminkana Soomaaliya ayaa waxa ay ku jirtay maxmiyadda qaramada midoobay 10 sannadood min 1950 ilaa 1960 iyadoo koonfurta oo dowladnimo ay u diyaarisay gumaysigii Talyaaniga kadib markii qaraarkii 250 ee qaramada midoobay ahaa sida lagu gudoomiyey 21 November 1949 kadib markii la diiday Britain oo waqooyi iyo koonfurba wada qabsatay dagaalkii labaad horeyna u haysay labada gobol ee uu markii dambe siiyey Kenya iyo Ethiopia kaasoo ahaa qaladkii ugu weynaa ee istiraatiiji ah ee ay Soomaaliya ku kacdo. Soomaaliya ayaa walow ay xornimo isu diyaarinaysay ayaana misna lahayn dakhli iyo miisaaniyad ku filan oo ay ku sii socoto xornimada kadib. tusaale ahaan miisaaniyaddii 1952 ilaa 53 oo qura waxaa ku baxday 8 bilyan iyo 283 milyan oo liira, balse lacagaha canshuur ahaan gudaha uga imaanaysay waxa ay ahayd 2 bilyan
iyo 530 milyan oo liire halka iyo 5 bilyan iyo 750 milyan ay Rome ka imaanaysay. waxa ay taasi ka dhigan tahay in Soomaaliya ay heli karto dakhli 30% ku filan, waxaana arrintaasi si gaar ah uga hadlay wariye la oran jiray Ransom Mauritaniani oo isla sanadkaasi 1953 ee qoraal lafagur ah ka sameeyay sida ay Soomaaliya isu maareyn doonto dhaqaale ahaan xurriyadda kadib, isagoo sheegay in Soomaaliya ay dhaxli doonto xurriyad iyo weliba xasarad ee wada socda xitaa haddii aynu niraahno waa qeyrbeele xumaan nala jecla. maanta oo hadalkaasi ee wariyahaasi laga joogo 68 sannadood waxa ay Soomaaliya nidaam ahaan ka wanaagsanayd oo dhanka ay u jeedo la yaqaanay maalintaasi, waayo maanta xor ma nihin, gumaysi muqdana kuma jirno, dal la'aan ma nihin, dal aan xukunnana ma jiro, dakhli waa uu jiraa, meel uu ku baxana lama yaqaano. oo Soomaaliya sanad kasta waxa ay kaalinta koowaad ka gashaa dalalka ugu musuqa badan caalamka. tan ugu darina waxa ay tahay in arrinta miisaaniyaddu aysan 68 sannadood waxba iska bedelin, oo dowlad oo Soomaaliya soo marta 70% amaba mararka qaar wax ku dhow 100% waxa ay ku tiirsaneed deeq dabadeed. waa tahay Allah u naxariistay waxa meedkiisa la helay Sheekh Maxamed Xasan Aadan oo ahaa imaamka masjidka Abu Hurayra ee magaalada Columbus, Ohio ee dalka Mareykanka, sidoo kalena ahaa xogayaha golaha imaamyada waqooyiga Ameerika ee Ayana. imaam Sheekh Maxamed Xasan ayaa laga waayay gurigiisa oo ku yaala magaalada Columbus, Ohio Arbacadii sida ay sheegeen qoyska iyo xubno ka tirsan ee jaaliyadda Soomaaliyeed. baaritaano socday ku dhawaad 48 saacadood kadib ayaa dad xogaal ah oo u soo sheegeen dad madax bannaan oo ka tirsan bulshada magaaladaasi oo si mutadawacnimo ah u baarayay in Sheekh Maxamed ay gaarigiisa ka heleen isgoyska Joyce iyo wadada 17aad ee dhanka waqooyi ee magaalada Columbus, Ohio. baabuurka dhexdiisa ayaa laga helay meydka imaamka lala'aa ee Sheekh Maxamed Xasan oo ay ku yeelaan dhowr xabadood oo jirkiisa ah. dadkii ayaa wacay nambarka loo soo gaabsado 911 iyo adeega degdega ah ee Columbus oo soo gaaray goobtii. waxaana meeshii isugu soo baxay Soomaali badan oo ka xun xaaladda, waxaana baraha bulshada laga arkayay qaar ka mid ah jaaliyadda Soomaalida ee halkaasi oo ku baaqaya in la isu soo baxo. Sheekh Cabdallah Abud Al-Fadil oo ah imaamka masjidka Al-Sunna ee magaalada St. Paul isla markaana Sheekh Maxamed Xasan saaxiibo dhow ahaayeen, ayaa warbaahinta u sheegay in goobtii laga helay meydka ay weli xiran tahay, booliiska baarista gacantana ku hayaan aan weli wax faahfaahin ah bixin. aragtida hore waxaa soo arkay nin walaalaha ka mid ah oo raggii baarigoobka ahaa ka mid ah ayaa arkay oo dul istaagay baabuurka shiiqa oo uu yaqaanay. kadib booliiska ayuu wacay oo meesha yimid, ilaa haddana meesha way xiran tahay, booliiska iyo weliba hay-adihii waxbaarayay ayaana jooga meesha, ayuu yidhi Sheekh Cabdallah oo isyaqaaniin ee sheekha dhintay. Sheekh Maxamed Xasan Aadan ayaa la waayey Arbacadii 7 fiidnimo xilliga Soomaaliya, waxaana markii ugu dambeysay lagu arkay masjidka Abu Hurayra. waxa uu ahaa nin hogaamiye ah oo dabeecad fiican, afgaaban oo sadaqo badan, inta badanna arrimaha ijtimaaciga ah ka shaqeeya ayuu ahaa. Sheekh Maxamed runtii waxa uu ka baxay ummadda Soomaaliyeed, jaaliyadda Mareykanka iyo ummadda Islaamka ah, waxa uuna caan ku ahaa inuu dacwadda dadka aan Islaamka ahayn gaarsiiyo maadaama uu afaf badan ku hadli jiray. shiiqa ayaa sidoo kale sida ay sheegayaan dadka deegaanka waxa uu qayb ka ahaa barnaamijyo dadka baahan cunto ee lagu gaarsiinayay intii uu jiray xanuunka safmarka ah, halka sidoo kalena uu qayb ka ahaa asaasidda barnaamijka ciyaareed oo dhalinyartu ay ka qayb qaataan oo isugu jiray kubadda gacanta iyo kubadda cagta. weligay ma arag isagoo leh maya shaqo samafal ah oo dadka loogu danaynaya, ayuu yidhi Cabdi Faarax oo ka tirsan qoyska Sheekh Maxamed. dad badan ayaana janaasa ahaan ugu tukaday goobtii meydkiisa laga helay xilli ay socoto baarista booliiska, waxaanu dadka ay ku baaqayaan in ay u baahan yihiin jawaabo xilli baarista booliisku ay socoto. Ohio waxa ay martigelisaa Soomaalida labaad ee ugu badan markii laga reebo Minneapolis ee Mareykanka. imaam Sheekh Maxamed Xasan ayaa ahaa ganacsade caan ka ah bulshada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Columbus, Ohio. geeridiisa waxa ay noqon doontaa mid naxdin u leh qoyskiisa iyo jaaliyadda muslimiinta ee Columbus. ugu dambeynna sida ay sheegtay hay-adda hawada sare ee Mareykanka, dhadhaab cireed la yidhaahdo Estriod 2014 oo markii ugu horreysay la arkay isla sanadkaasi ayaa u soo siqaya dhanka dhulka oo u jiirsanaya masaafo dhan 7,400,000 kilomitir 6 January. NASA oo balliciisa ku sheegtay 150 mitir ayaa tilmaantay
in maadaama uu 7.5 milyan oo kilomitir soo jirsanaya loo arki karo mid ay halis ka imaan karto balse aysan khatartaasi ahayn mid aad u weyn. sidoo kale isla dhammaadka sanadkan 2021 gaar ahaana 29 Disembar oo ku beegan bartamaha toddobaadka soo aadan waxa uu dhulka u soo dhowaanayaa dhadhaab cireed kale oo 149 mitir ah kaasoo dhulka u soo jirsan doona 3,540,000 kilomitir waxaana si gaar ah dhaqdhaqaaqooda ula socda NASA. dhadhaab cireedyada ayaa waxa inta badan dhacda inay dhulka dhinac maraan maadaama ay ku kala socdaan falagyo kala duwan waxaana sidoo kale qaar kala gubtaa jawiga hawada iyo magnetka ah ee dhulka ilaalisa. balse 2013kii dhadhaab cireed 20 mitir uun ahaa ayaa ku habsaday Jelebesik oo ah magaalo ku taalla Ruushka isagoo sii daayay tamar u dhigantay 26 ilaa 33 qumbuula duriyo isagoo burburiyey guryo badan isla markaana wax u geystay qiyaastii 1500 oo ruux. qodobkaasna wuxuu u dambeeyaa warkii waddanka TV. inta aynu ka gaarayna warkayagii xigana waxaan inkaga tegaynaa guul iyo gobonnimo. bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. kulan wacan oo wanaagsan saaxiibayaal, halkani waa qiima TV meel kastoo aad joogtaan iyo si kastoo aad noo maqlaysaan kusoo dhawaada wararkeena maanta. qodobada aad ku maqli doontaan haddii alla qadaro oo barnaamijka aan idinkugu soo gudbin doonno waxaa ka mid a madaxweynaha Puntland oo go-aan adag ka qaatay ciidanka BSF kana hadlay dagaalkii Boosaaso ka dhacay xilli uu raaligelin buuxda siiyey odayaasha dhaqanka iyo salaadiinta reer Puntland ee horey uu amarkooda u jibiyey. Dani oo markii uu ku fashilmay dagaalka Boosaaso haatan ogaaday xaalku halka uu ka jiro nabadna ka doortay. faahfaahin ku saabsan khudbad uu jeediyey Dani oo markaa uu ku doonayo in xaalka Boosaaso la dejiyo ayaa barnaamijka idinku soo gudbin doonaa saaxiibayaal. ma u muuqataa xaaladdu in Dani uu isdhiibay oo magaalada Boosaaso u daayay ciidanka BSF? falanqeyn ayaan ku sameyn doonaa. waxaa kaloo barnaamijka idinku soo gudbin doonaa saaxiibayaal haddii aan idmo ra-iisul wasaare Roble oo siyaasadeynaya kiiskii Ikraan Tahliil kadib markii lagu helay inuu dhisanayo dhul dowladdu ay leedahay xilli baaritaan la xiriira dhulkaas ciidamada badda ay leeyihiin ee sharci darrada lagu dhisanayo lagu bilaabay baaritaan. Roblena baaritaanku uu qayb ka yahay. haddaba faahfaahin ku saabsan ayaa barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa saaxiibayaal. maxaa isku soo aadiyey baaritaanka lagu hayo kiiskii dhulka markaasi Roble lagu eedeeyey iyo soo laba kacleynta Ikraan Tahliil dembigii loo geystay? faahfaahin ku saabsan ayaa barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa saaxiibayaal. waxaa kaloo aad ku maqli doontaan haddii alla qadaro ciidanka ammaanka Soomaaliya oo howlgal ballaaran ka sameynaya deegaano hoostaga gobolka Shabeellada Hoose kadib markii halkaasi kooxo al-shabaab ka mid ah ay isku dayeen in ay carqalad ku sameeyaan dadka deegaanka ee wadooyinkaasi isticmaalaya. faahfaahin ku saabsan ayaa barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa. ciidanka iyo tallaabooyinka ay qaadeen iyo baaritaanka ay ka wadaan deegaanada gobolka Shabeellada Hoose. qodobadaas oo faahfaahsan ayaa barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa saaxiibayaal. fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar kanaalka gambalalkana furo si aysan ku dhaafin wararka iyo warbixinada aan kusoo gudbin halkani. mahadsanid. hagaag haddii aan sii gudagalo barnaamijka, madaxweyne Siciid Cabdulaahi Dani waxa uu go-aan adag ka qaatay dagaalka ka socdo magaalada Boosaaso, gaar ahaan dagaalka uu Dani kula jiro ciidanka BSF kadib markii uu jeediyey khudbad xilli uu raaligelin buuxda siiyey odayaasha dhaqanka iyo salaadiintii Puntland ee horey uu amarka uga diiday taa uu ka doortay dagaal taladii odayaasha u soo jeediyeen. kadib markii xaalku uu faraha ka baxay, Danina uu ogaaday in uusan marnaba ku guuleysanayn dagaalka uu kula jiro ciidanka BSF ee markaasi magaalada Boosaaso ka socdo. dad badanna ay ku geeriyoodeen dagaalkaas, qaar kalena ay ku barakaceen, ayuu haatan ogaaday in xaalku uusan wanaagsanayn. waxa uu doortay inuu nabad qaato oo markaasi ciidanka BSF iyo isagaba ay soo kala dhaxgalaan odayaasha dhaqanka ee reer Puntland iyo sidoo kale salaadiinta iyo waxgaradka. Siciid Cabdulaahi Dani ayaa mar taladu faraha ay ka baxday oo odayaasha dhaqanka warkoodii uu diiday, haatan doonaya in uu markaasi wadahadal iyo heshiis la gaaro. Dani waxaa gacantiisa ka baxay magaalada Boosaaso markii 4 loo qaybiyo 3 ka mid ah, waxaana haatan ciidanka BSF ay ku dhow yihiin inay gacanta ku dhigaan madaxtooyada magaalada Boosaaso iyo guud ahaan habsami socodka iyo dhaqdhaqaaqa magaaladaasi ka jira.
ciidankii dani ee uu magaalada kusoo aruuriyey ayaana awood xoogan loo sheegtay oo meesha laga saaray. markii uu ogaaday dagaalka socdo inuusan marnabo ku guuleysanayn xaalkuna uu farihiisa kasii baxayo ayuu doortay odayaasha dhaqanka taladoodii ahayd in nabad iyo xasilooni magaalada lagu soo celiyo, wuxuuna jeediyey khudbad markaa u muuqatay quus iyo inuu isdhiibay. madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdulaahi Dani oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Garowe ayaa ka hadlay dagaalkii ka dhacay magaalada Boosaaso iyo mowqifka maamulkiisa. Siciid Cabdulaahi Dani ayaa ugu horeyntii ka taxsiiyey dadkii ku dhintay dagaalka, waxaana uu ugu baaqay shacabka ka barakacay Boosaaso inay guryahooda kusoo noqdaan, wuxuuna amray in laga bilaabo markaa uu khudbada jeedinayay in dib loo furo dhammaan xarumaha dowladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay ee markaasi laga cararay oo dadku ay guryahoodii uga carareen dagaalka uu Dani halkaasi ka abuuray. Siciid Cabdulaahi Dani ayaa xusay in odayaasha dhaqanka maamulka Puntland uu ku taageeri doono in ay ka shaqeeyaan nabadda iyo in dib loo soo celiyo dadkii magaalada ka barakacay. waxaan halkaani ka amrayaa in ciidan xabad ridi kara aysan jirin, waana in ay ku sugnaadaan goobahooda oo ay joogaan. waxaan ugu baaqayaa dadka barakacay in ay soo laabtaan, ayuu yiri Siciid Cabdulaahi Dani. madaxweyne Dani ayaa sheegay in wax kasta oo dhacay ay ka dowlad ahaan diyaar u yihiin in xal nabadeed laga gaaro oo lasoo afjaro xiisadda ka taagan magaalada Boosaaso. wuxuuna si toos ah ugu baaqay agaasimaha markaa xilka laga qaaday iyo ciidanka BSF Maxamuud Cismaan Diyaano oo hogaaminayo ciidanka ka dagaalamaya Boosaaso inuu isna uu hubka dhigo. waxaan ugu baaqayaa agaasimihii hore ee BSF oo runtii isaga walaalkiis iyo aabihiis ay waqti badan kasoo qayb qaateen difaaca dalkan in taariikhdiisa uusan iska xumayn. waan u nasteexaynayaa dadka reer Puntland heer kasta ha joogaane bulsho, shacab iyo dowladba way u nasteexaynayaan, ayuu hadalkiisa sii raaciyay Siciid Cabdulaahi Dani. Dani ayaa u muuqdo nin isdhiibay oo markaa marnaba oo ogaaday in uusan ku guuleysanayn dagaalka magaalada Boosaaso ka jiro, waxa uuna sheegay in marnaba uusan aqbali karin dagaalkaasi Boosaaso ka jira. Dani ayaa sheegay in wixii dhacay ay yihiin wax ku wada dhacay oo ka wada dhacay qaladkana markiisa laga wada hadli doono, balse waxa uu sheegay in waqtigan aysan jirin cid la eedeynayo maadaama dad shacab ahaa ay duurarka u baxeen oo xaalad degdeg ah ay wajahayaan. waxaan idiin cadeynayaa dowladdu waa dowlad nabadeed, nabad baan doonaynaa. dhammaan ciidanka Puntland waxaan farayaa in nabadda ay ka wada shaqeeyaan oo ay ku noolaadaan. arrintaana waxaan ka codsanayaa dhanka kale inay iyana xasilooni qaataan, ayuu hadalkiisa raaciyay. dagaal socday muddo 3 cisho ah ayaa waxa uu galaaftay dad aad u tiro badan, sidoo kale barakac xoogan ayaa ka dhashay magaalada Boosaaso. dagaalkaasna waxaa mas-uul ka ahaa oo markii horeba iclaamiyey Siciid Cabdulaahi Dani, xilli odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka reer Puntland ay qaateen nabadda oo markaa ay soo saareen warqad ay markaasi labada dhinac u kala garqaadayaan, ayuu Dani diiday inuu aqbalo warqadaas. dagaal ayuuna ka doortay. markii xaalku faraha ka baxay dagaalkuna uu ogaaday inuusan ku guuleysanayn oo markaasi uusan tilaab qaadi karin, ayuu ugu dambeyntii aqbalay xabajoojintii iyo odayaashii. waana inta badan waxa lagu yaqaano siyaasiyiinta Soomaalida marka uu dhiig daato kadib inay qaataan nabadda iyo xasiloonida. waa tahay haddii aan qodobka halka ugu gudubno, markaana ra-iisul wasaare Roble ayaa siyaasadeynaya kiiska Ikraan Tahliil kadib markii lagu helay in uu dhistay dhul dowladdu ay leedahay. waxa uu ra-iisul wasaare Roble bilaabay inuu ka hortago baaritaanka lagu hayo ee ah in dhulka dowladda uu dhistay, waxauna doonayaa in uu kiciyo kiiska Ikraan Tahliil uu meel kaleeto arrinta u saaro. xilli taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu magacaabay guddi baaritaan ku sameeyo dhulka dowladda ee dhismaha uu ku hayo ra-iisul wasaaraha markaasi ciidanka baddu ay leeyihiin, ayaa waxaa soo baxay oo dib usoo labakacleeyay kiiska Ikraan Tahliil. dad badan oo Soomaaliyeed ayaan u arkay ra-iisul wasaare Roble oo kiiskaasi lacag ka doortay markii horeba in haatan uu ka dhiganayo waddo uu uga badbaado baaritaanka ku socdo, markaana dadka shacabka ee Soomaaliyeed in uu leexiyo dareenkooda oo meel kale u leexiyo. ra-iisul wasaare Roble ayaa lagu eedeeyay in dhul dowladdu ay leedahay uu dhisanayo. taliyaha ciidanka badda ee Soomaaliyeed ayaana eedaasi ra-iisul wasaaraha u jeediyey. sidoo kale eedda ra-iisul wasaaraha waxaa ku sii cadeeyay
taliya Bashir Goobe oo sheegay dhulkaas inuu yahay dhul yar oo iska yar markaana qashinka badda ay isugu ururaan taana ay keentay in ra'iisul wasaaruhu uu dhisto waxaana arintaa markaa noqotay mid banaanka taal oo ra'iisul wasaaraha lagu helay inuu dhul dawladeed dhisanayo markaa waxaa loo saaray guddi baaritaan ku sameeyo cidda dhulkaasi u fasaxday in la dhiso iyo ra'iisul wasaaruhu hadduu uu ku lug leeyahay guddigii la magacaabay oo baaritaanka bilaabay ayaa haatan waxaa markaasi ra'iisul wasaaruhu uu dhan kale doonaya inuu arrintu u rogo isagoo markaasi dib u soo nooleynaya kiiskii Ikraan Tahliil kadibna doonaya in la siyaasadeeyo kiiskaas oo dhan kale loo rogo waan arki doonaa baaritaanka ra'iisul wasaaraha ku socdo iyo natiijada ugu dambeyso ee ka dhasha baaritaankaas haddii markaa uu ra'iisul wasaaraha ku keeni karo dhibaato xoogan iyo haddii kale ugu dambeyntiina markaan ciidanka qalabka sida ee Soomaaliyeed ayaa waxa ay howlgal ballaaran ka sameynayaan deegaano hoos uga gobolka Shabeellada Hoose kadib dagaal halkaasi ka dhacay ciidanka xoogga Soomaaliyeed ayaa waxa ay bilaabeen waxay baaritaano ka sameynayaan deegaano uu ka kooban yahay gobolka Shabeellada Hoose waxaana kamid ah deegaanada ay ka sameynayaan baaritaanka deegaanka Awdhig la yiraahdo halkaas oo ciidanku ay guul weyn ka gaareen maleeshiyadka Al-Shabaab ay la dagaalami jireen faahfaahin dheer ayaa ka soo bixaysa howlgal qorsheysan oo ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed gaar ahaan ciidanka gorgor ee xoogga dalka ay ka sameeyeen deegaano ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose ee Koonfur Galbeed Soomaaliya howlgalka ayaa waxaa si gaar ah looga fuliyay deegaan ka tirsan deegaanada la kala yiraahdo Shaangare iyo sidoo kale Jowhar Yarey iyo Mubaarak halkaas oo maleeshiyadka Al-Shabaab ay waqti dheer isku dayeen in ay markaasi qaska kiciyaan kulan wacan wanaagsan saaxiibada qiimaha iyo qadarinta naga mudan meel kastoo aad joogtaan iyo weliba si kastoo noola socotaan waxaan gudagelaynaa war degdega oo ka soo baxay xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kaasoo lagu dhimay mar kale awoodii ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya lagana wareejiyay guud ahaan arrimaha doorashada iyo sidoo kale daadihinteeda maadaama uu ku fishilmay doorasho nabad inuu ka qabto gudaha Soomaaliya sida lagu sheegay warka ka soo baxay filla Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa soo saaray warqad xilli saacadu ay ahayd 2 habeenimo ee xalay taasoo ka soo baxday xafiiska madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo madaxweyne Farmaajo ayaa dib u la wareegay awoodiisa dalka sida markaasi ka muuqata warqadda ka soo baxda xafiiskiisa taasoo ka dhigan mid la doonayo in doorashooyinka iyo sidoo kale golayaasha dib loo howlgeliyo si dalka looga qabto doorasho midaysan iyo sidoo kale go'aan dhameystiran oo ku saabsan in dalka loo jiheeyo waddo doorasho maadaama ra'iisul wasaarihii loo igmaday arrimaha doorashooyinka oo ka gaabiyay sida daraadeedna aysan muhiim ahayn xilligan in roob la markaasi lagu aamino doorashada dalka haddii aynu dul istaagno warqadda ka soo baxda xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo markii uu arkay oo dib u eegay xeerkii madaxweyne ee uu ku magacaabay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble taas oo lagu faray inuu dhiso xukuumad tayo leh oo dalka u horseedo doorasho nabdoon markuu arkay heshiiskii 17 Sebtembar sanadkii tagay ee 2020 oo ay wada gaareen dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir kaasoo baarlamaanka labadiisa aqal uu ansixiyay madaxweynuhuna uu ku soo saaray sharciga number 30 markuu madaxweynuhu arkay habraacyadii hirgelinta doorashada iyo sidoo kale xeerarkii lagu dhisay guddiga heer federaal iyo heer dawlad goboleed iyo guddiga xalinta khilaafaadka ee soo baxay 1 Oktoobar sanadkii tagay 2020 markii uu tixraacay khudbadii uu madaxweynuhu ka horjeediyay golaha shacabka 1 May sanadkan taasoo mas'uuliyadda hogaaminta doorashooyinka uu u igmaday ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble markii ay cadaatay in 14 bilood kadib saxiixii heshiiskii 17 Sebtembar ee sanadkii tagay inaysan weli dhameystirmin doorashooyinka dalka markuu arkay in wasiirka koobaad uu ka gaabiyay hogaaminta iyo hirgelinta doorashooyinka ee uu xil saaray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sidii ku cadeed
khudbadii uu madaxweynuhu ka horjeediyey golaha shacabka 1 May ee sanadkan markii ay caddaatay in ra'iisul wasaaruhu uu ka leextay dhabihii hirgelinta doorashada isaga oo kala dhantaalay wadajirka gudiyadii loo igmaday fulinta iyo qabashada doorashooyinka kuna xadgudbay madax banaanidooda shaqo markii uu arkay in ra'iisul wasaaruhu uu soo saaray go'aano kaligiisa oo u gaara oo ay ka dhalanayeen caqabado khatar ku ah geedi socodka doorashooyinka dalka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya markii uu xeeriyay qodobadan soo socda in ra'iisul wasaaruhu uu guda waayay waajibaadkii loo igmaday ee ahaa hogaaminta doorasho ku dhisan heshiiskii 17 Sebtembar sanadkii tagay 2020 iyo habraacyadii dhameystirayay ee soo baxay 1 Oktoobar sanadkii tagay 2 madaxweynuhu wuxuu ku baaqayaa in la isugu yimaado shir wada tashi ah oo lagu saxayo jihaynta doorashooyinka kaas oo ay ka soo qayb galayaan golayaasha dawladaha heer federaal iyo heer dawlad goboleedba iyo gobolka Banaadir si la isugu waafaqo hoggaan awoodna u leh hirgelinta doorashada oo dhameystiran si hufan dalka uga dhacda 4 madaxweynuhu wuxuu ku baaqayaa in la dhageysto talooyinka waxgaradka siyaasiyiinta bulshada rayidka ee qaybaha markaasi tabashooyinka la xiriira doorashooyinka si loo helo hanaan doorasho oo ku dhamaada jawi nabdoon oo loo siman yahay ayaa lagu yiri warka ka soo baxay xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo warkaas ayaana ahaa war weyn oo ka soo baxay xafiiska Villa Soomaaliya lagana filayay in madaxweyne Farmaajo uu markaasi ka wareeji doona doorashada maadaama Rooble lagu eedeynayo xilligan inuu ku fishilmay arrimaha doorashada Soomaaliya madaxweyne Farmaajo ayaa ku dhawaaqay in ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble uu guda waayay waajibaadkii loo igmaday ee doorashada Soomaaliya madaxweynaha ayaa ku baaqay in kulan degdeg ah ay isugu yimaadaan hogaamiye goboleedyada dalka iyo gobolka Banaadir si looga wada hadlo jihaynta doorashada iyo sidoo kale in heshiiskii 17 Sebtembar lagu shaqeeyo doorashadana lagu dedejiyo taasoo ka dhigan mid madaxweynuhu uu markaasi doonayo inuu dib u la wareego awoodda dalka doorashada iyo sidoo kale go'aankan oo la soo warinayo in ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya lagu markaasi cunaqabataynayo maadaama uu madaxweynuhu markaasi dalbaday in doorashada la saxo muddana uu ka warsugayay taasoo dhalisay in go'aankaas Rooble uu dhagaha ka fureysto sida iminka muuqata haddaba shirar kala duwan ayaa xilligan ka soconaya oo subaxnimo ah madaxtooyada Soomaaliya gaar ahaan xafiiska ra'iisul wasaaraha siyaasiyiinta midowga murashaxiinta ayaa ku kalahay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya xafiiskiisa Rooble oo la soo warinayo in laga yaabo in go'aan kale uu ka soo baxo Villa Soomaaliya oo ku aadan go'aanka madaxweyne Farmaajo taasoo la soo warinayo in laga yaabo in madaxweynuhu mar kale uu ku dhawaaqo in ra'iisul wasaaraha laga qaado awoodda guud ahaan doorashada iyo sidoo kale in laga wareejiyo arrimaha doorashada warar kalena waxay sheegayaan oo xilligan aynu helayno in madaxweynuhu doonayo in ra'iisul wasaaraha xilka uu ka qaado maadaama horay markaasi wararkeenii hore aan ugu baahinay inuu jiro heshiis u dhaxeeya mucaaradka iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya sida ila kala duwanba ay noo sheegayaan warar kala duwan suldaanka Tifu helayo ayaa sheegaya in madaxweynaha iyo sidoo kale ra'iisul wasaaruhu ay isku qalaabsan yihiin guddiga doorashada iyo arrimo kale ku saabsan guud ahaan doorashada dalka waxa sidoo kale la isku haystaa dhul boob Rooble lagu eedeeyay taasoo la soo warinayo in laga yaabo in Rooble maxkamad uu ku muteysto maadaama uu ka soo horjeestay go'aanadii muhiimka ahaa ee dalka markaasi doorashada u jihaynayay haddaba arrintan ayaa markaasi dalka geli karta qalqal kale iyadoo markaasi shacabka Soomaaliyeed ay horay markaasi ula socdeen go'aanadii Rooble uu qaatay oo dalka u jiheeyay meel cidla ah taasoo ka dhigan mid xilligan dawladdu ay doonayso in madaxweynuhu uu markaasi dib u la wareego awoodiisa doorashadana isagu daadihiyo taasoo ka dhigan mid markaasi xoog lagu saarayo go'aan mida oo la doonayo in hogaamiye goboleedyada iyo sidoo kale markaasi madaxweynuhu go'aan wada gaaraan sidoo kale warar kale ayaa sheegaya inuu soo socdo war ka weyn warkan
gudoomiyaha golaha shacabka mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan waxaa la soo warinayaa in isaguna uu ku dhawaaqayo go'aan weyn saacadaha nagu soo aadan oo ku saabsan in shir degdeg la isugu yeero baarlamaanka golaha shacabka kaasoo lagu howlgelinaya sida xoguhu sheegayaan ila muhiima ayaa suldaanka subaxnimadii saaka u sheegay in madaxweyne farmaajo iyo Rooble iyo aan iraade mursal ay ku heshiiyeen in markaasi Rooble laga wareejiyo awoodda doorashada maadaama uu ku fijilmay taasoo ka dhigan mid baarlamaankii tobnaad si degdeg loo hirgelinayo in markaasi iyagu ay jihayaan doorasho kale cusub oo dalka laga qabanayo wallow wararka qaar ay sheegayaan in lagu shaqeynayo habraacidii hore doorashada iyo sidoo kale in lagu saxayo guud ahaan arrimaha doorashada taasoo dalka markaasi xaalad kale gelinaysa dibna u dhigi karta guud ahaan doorashooyinka Soomaaliya iyadoo xogaa qaar ay sheegayaan in gudoomiyaha golaha shacabka isaguna uu ku dhawaaqayo go'aan markaasi ku saabsan oo la doonayo in go'aankan uu noqdo mid baarlamaanka lagu howlgeliyo iyadoo ila kala duwan muhiim ay sheegayaan in dhinaca filla Soomaaliya ay ka socdaan shirar waaweyn oo madaxweynuhu uu leeyahay gudoomiyaha golaha shacabka iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Banaadir ila kale ayaa suldaanku u sheegaya in taliyaasha ciidamada ay ku sugan yihiin xafiiska madaxweyne Farmaajo halkaasina ay shir kula leeyihiin dhinaca kale ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa lagu wadaa in saacadahan nagu soo aadan warbaahinta la hadlo iyadoo sidoo kale xaga qaar ay sheegayaan in xafiiskiisana laga fila karo qoraal inuu ka soo baxo taasoo ka dhigan mid uu uga jawaabayo warqadii uu soo saaray madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo bartaan isha ku haya wixii ku soo kordha wararkeena dambe ayaan ku soo doona insha Allah qaybtaana halkan ayaan ku soo gabagabeynaya nabadgelyo kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhabka hadal qaybtan waxaynu ku eegaynaa Soomaaliya waxaa bilowday wajiga labaad ee dagaal siyaasadeedka u dhaxeeya madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Rooble dagaalkan ayaa waxa uu la xiriiraa khilaaf dhanka doorashooyinka oo ku haadan ama ku aadan ama ku saabsan qaabka ay u socoto doorashada Soomaaliya oo dhowr jeer ama in badan dib u dhacday madaxweynaha Soomaaliya oo dalka Turkiga ku maqan ayaa ra'iisul wasaare Rooble waxa uu shaqadii ka ariyay ama uu ka cayriyay koox kamida guddiga xalinta khilaafaadka arrimaha doorashooyinka taasi waxay cirka ku shareertay ama ay baasiin ku sii shiday khilaafkii u dhaxeeyay madaxweynaha ama kooxda madaxweynaha iyo kooxda ra'iisul wasaaraha shalayna qaar kamid ah guddiga doorashooyinka heer federaal kulan ay ku yeesheen Muqdisho waxa ay soo saareen qoraal ay ku sheegeen in shaqadii ay ka eriyeen gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal Maxamed Cirro waxayna u cuskadeen eedeymo ay kamid tahay in gudoomiyaha iyo koox kamid ah guddiga ay ku milmeen arrimaha siyaasadda waxaa maalmahan aad loo hadalhayay dagaalka u dhaxeeya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo halka uu ku biyo shuban doono iyo sida uu u xagal daacin doono dadaalada loogu jiro in Soomaaliya ay ka dhacdo doorasho hufan oo xor iyo xalaal ah oo in badan lagu baaqayay in ay ka qabsoonto dalka marar badanna dib u dhacday xalay saqdhexe madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu soo saaray qoraal kaas oo ahaa mid la filayay Soomaalidu waxay dhahdaa nabar aad filaysay naxdin male qoraalkan madaxweynuhu waxa uu ku faahfaahiyay eedeymo badan uu ugu jeediyay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble isaga oo sheegay in uu ku guul daraystay isla markaana uu ku fashilmay arrimihii doorashooyinka ee horay loogu igmaday haddaba nuxurka warqadii iyo qoraalkii xalay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu soo saaray waxa inoo qaada dhigaya oo inoo soo koobaya wariye Maxamed Xuseen Cabdiwahaab Hadraawi madaxweynaha muddo-xileedkiisu dhammaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa qorsheynaya in xilka laga qaado ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble Farmaajo ayaa damiciisa si aan gabasho lahayn ugu cadeeyay qoraalkii uu soo saaray abaare labadii aroornimo ee maanta in uu shirka isugu yeeray madax goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir madaxweynuhu wuxuu ku baaqayaa in la isugu yimaado shir wada tashi ah oo lagu saxayo jihaynta doorashooyinka kaas oo ay ka soo qayb galayaan golayaasha dawladda ee heer federaal dawlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir si la isugu waafaqo hoggaan awood u leh hirgelinta doorasho dhameystiran
oo si hufan dalka uga dhacda ayuu farmaajo ku yiri qoraalkiisa. Hoggaanka uu farmaajo doonayo in la isku waafaqo ayaa sida aan xogta ku helnay loola jeedaa ra'iisul wasaare cusub, waxaana durbo qorshahan bilaabay gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Maxamed Mursal Cabdiraxmaan. Mursal oo shalay khudbad uu ka jeediyay Xamar ayaa tusmeeyay damaca isaga iyo farmaajo kadib markii uu sheegay in heshiiska 27 September uu ku eeg yahay dhamaadka bisha, taas oo meel uu ka keenay aan la garanaynin balse loo fahmay arbushaad cusub. sida aan xogta ku helnay, farmaajo ayaa xilka qaadista ra'iisul wasaare Roble taageero uga raadinaya qaar ka mid ah mucaaradka, isaga oo ku qancinaya in uu ra'iisul wasaare ayaga ka keeni doono. balse war-saxaafadeed jawaab uu ahaa war-saxaafadeedka uu soo saaray farmaajo ayaa ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa jawaab kulul ka bixiyay hadalkii ka soo yeeray madaxweynaha Soomaaliya ee waqtigiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Roble ayaa sheegay in musharax gaar ah laga yeeri doonin in uu ku takrifilo doorashada Soomaaliya, waxaana ka mid ahaa qoraalkii uu soo qoray Roble: musharax gaar ah lagama aqbalayo in uu doorashada ku takrifalo. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Roble waxa uu aad uga xun yahay qoraalka saaka aroortii ka soo baxay xafiiska madaxweynaha. qoraalkaas waxa uu ahaa mid si ku talagal ah uu madaxweynaha ugu carqaladeynayo hanaanka doorashada dalka oo maraya marxalad aad u xasaasi ah. sida ka muuqata waqtiga lagu soo beegay qoraalkan oo ah xilli loo balansan yahay kulanka golaha wadatashiga qaranka oo la doonayo in lagu dardargeliyo howlaha doorashooyinka iyo ilaalinta hufnaanta doorashada, waa qorshe uu madaxweynaha ku doonayo inuu ugu hortago kulanka golaha, taas oo si cad u muujinaysa in aanu madaxweynaha marna raali ka noqon doonin in dalkan ay ka dhacdo doorasho ay ku kalsoonaan karaan bulshada Soomaaliyeed. waxaana la wadaagaynaa shacabka Soomaaliyeed iyo beesha caalamkaba in madaxweynuhu intii uu xafiiska joogay uu waqti iyo maal iyo maskaxba ku bixinayay sidii uu ku sii joogi lahaa xafiiska, isagoo isku dayaya inuu doorashada noqoto oo kaliya mid ka jawaabaysa doonistiisa ama uu wadada u xaaro muddo kororsi sharci darro ah. tan iyo intii uu ra'iisul wasaaruhu la wareegay hogaaminta howlaha doorashada, madaxweynuhu wuxuu si joogto ah uu caqabad ugu ahaa hirgelinta doorashadii lagu heshiiyey, isaga oo u isticmaalayay xeelado kala duwan, kuwaas oo markii mid la xaliyaba uu furayay mid kale ilaa uu saaka soo saaray wax si cad sharciga u baalmarsan. waxaa xusid mudan in doorashada uu hogaaminayo ra'iisul wasaaruhu ay tahay mid ay u siman yihiin dhammaan ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan musharaxiinta u tartamaya hoggaanka dalka oo uu ku jiro madaxweynuhu. sidaas darteeda lama aqbali karo in musharax gaar ah uu isku dayo inuu doorashada ka dhigo mid uu natiijadeeda ku leeyahay saameyn gaar ah. ugu dambeyn, ra'iisul wasaaruhu isagoo uu gudanayo waajibaadka qaran ee uu siiyey dastuurka ku-meel gaarka ah, raacayana heshiiska siyaasadeed ee awoodda u siiya hogaaminta doorashada iyo amniga, waxa uu u ballan qaadayaa shacabka Soomaaliyeed isaga oo kaashanaya golaha wadatashiga qaranka inuu xooggiisa isugu geenayo dhamaystirka doorasho iyada oo la ilaalinayo hufnaanteeda, maadaama xalka kaliya ee u furan qarankan ay tahay doorasho u horseeda in awood lagu kala wareego si sharci ah oo nabadoon. hagaag aad u mahadsan yahay Maxamed Xuseen Cabdiwahaab oo inoo soo koobayay nuxurka iyo waliba fariinta qoraalkii ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, kaas oo eedo loogu jeediyay ra'iisul wasaare Roble iyo waliba qaab hogaamintiisa arrimaha doorashooyinka ee Soomaaliya. dhinaca bidix waxaa fadhiya Guulada Alifle, isaga ayaan bal wax ka weydiin doonaa dagaal siyaasadeedka wajigii labaad ee u dhaxeeya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble ee bilowday iyo waliba waxyaabaha aasaaska u ah ama salka uu ku hayo iyo halka uu ku dambeyn doono mustaqbalka. Guulad soo dhow. aad baan u mahadsantahay saaxiibka Yelkaas. daawadayaasheen horta aad baan u salaamayaa. waxaan soo dhaweynaynaa mar labaad wajigii labaad ee dagaalka Farmaajo iyo Roble. soo dhaweynka maxaad ku wadaa? waxaan soo yacni wuu bilowday. dadku waa iska wada xogoogaan. siyaasadda Soomaaliyana muddooyinkii ugu dambeysay doorashooyinkeedu way iska haadaa dhacayeen oo kolba meel bay iska toleysay. kol Farmaajo horta muskale la fuulay, kol Roble muskale la fuulay, qolyo u dhaxeeya labada dhinac oo iyagu ka faashileeyeen way jireen. marka si guud oo dhexdhexaada oo aynaan mucaaradna ka ahayn muxaafidna ka ahayn oo aynu falanqeynteena ku cabirayno yaan rabnaa inaan u guda galno. horta dhibaato kale meesha kama jirtay, kursiga la isku haystaa. Farmaajo qorshe u degan
qorshaha u degani waxa weeye kursigan uu ku fadhiyo horta inuu ku sii fadhiyo anigu waxaan aaminsanahay aragtidayda farmaajo hadduu rabo doorasho inaan inta bal isla soo gaadheen oo mar hore la qaban lahaa marka danuhu hadda isagu leeyahay waa wax u qarsoon kolley laakiin inta aynu ka qiyaasi karno kursigan dhinac ugama socda inuu horta ku fadhiyo yuu rabaa ra'iisul wasaaraha yimid waa la wareeriyey kolba qolo yaa wax u keenta kol mucaarad baa wax u keena markuu meel dhaxal la marinayo iyo isdhahaa ka leexo oo bahasha bal dhexdhexaadka ku leex kol dawladda la heshiiso oo ballanqaadi iyo wax intii la sameeyo oo heshiis iyo nabad la isugu imaado bay haddana ka kala duushaan ra'iisul wasaaruhuna hadduusan wareeri lahayn oo talooyinka faraha badan ee kolba mid uu qaadaya isaguna uuna qaadan lahayn mar hore doorashadu dhici lahayd farmaajo inuu kursiga ku sii fadhiyo way ka go'anta cid uu ku shaqaysto oo u fududaysana ma waayo ninku waa nin maskax furan xilligii ugu darreyd ee la lahaa filada ka soo saara dagaalkii la abaabulayay ka dhacayay muqdisho ee lagu diidanaa muddo kororsiga la isla hadda waa ugu daran tahay soo u aamusnaa unbuu ayar doorashadiiba yidhi ra'iisul wasaarahan u dhiibay wax walba waa kana waa idinku wata labadii sano ee la diidanaa maalinkaas bilaa hadda ka dhima sidii iyo kursigii u fadhiya qoladan mucaaradka inay wax dhacaanna way rabaan guul darrana way ka cabsanayaan oo sidan hadda ay ku socdaan haddii ay wax ku dhacaan dee maamul goboleedyadii qaar baa xagga jira dowladda oo ilaa intii ugu badnayd xagga jiraan xildhibaanadoodiina dabcan isaga jeebkiisay gelayaan labadii maamul goboleed ee mucaaradka ahaana iyaguna siday ugu wada socdeen kooxahan midowga musharaxiinta arinta markii meel dhaxal la isla maray iyagana waa la kala booday dana kale un baa soo kala dhexgalgalay sidan hadda ay wax ku socdaan haday wax ugu dhacaan mucaarad iyo midow musharaxiin iyo ra'iisul wasaarahooda iyo waxa isku duuban banaanka yaalaan sidan ay wax ku socdaan haday sii ahaadaan farmaajo uu iska sii joogi laba daran mid dooro yaa haysata qolihii ka soo horjeeday madaxweynaha wixii 8 February la qabanayay wallahi tuma wallahi wala bixinayaan sanad iyo waxay nagu qaadatay wax bixinaya maanan arag si guud marka khilaafka ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha waxaad moodaysay in la dhameeyay laakiin wax walba daha gadaashiisa ku qarsoonaayeen siyaasad baana la ciyaarayay siyaasadii la ciyaarayayna bartanay hadda soo galo fadhiisatay dagaalkii maalinkii hore aynu ogeyn beel caalam iyo cid kastoo dhex gashay ay ku rafaaday markii dambana adigu xal loo helay ee la xaliyay haddana waxaad moodaa midkii ka daran inuu dib u bilowday xalkiisu meeshu ka iman doono sida lagu xalin doono Allahu yaclam waqtiga ka jawaabi doono laakiin waxay u muuqataa siyaasadda Soomaaliya iyo doorashooyinkii looga bartay in ay hanaanka 4 sano intay dhamaadaan si sax u yimaadaan inay meesha ka baxeen dawladnimadii iyo maxaan ku raahday dawladii iyo maxaan ku raahday wixii urdanka ah hadda la abuurayna ay meesha ka sii baxayaano hadii hadda gacan ka hadal iyo dagaal ay noqoto dawladii la aqoonsanaayo caalamku ay aqoonsanaayeen ku meel gaarka ka soo baxday meesha ka baxayaano dib baa loogu noqonayaa wixii hore loo soo maray marka xaaladda Soomaaliya saas ay waxa kiranta waa aad u maasan tahay waana soconnaa marka khilaafkan iyo halka uu wax marayo doorashooyinkii oo marar badan dib u dhacay ayaa hadda socday qaabka ay wax u socdaan baa dadka qaar ay dhalishan yihiin ra'iisul wasaaraha waxa la sheegay qaar kamid ah kuraasta lagu tartamay ama la doortay nooc idin ha noqotay inuu hor istaagay oo guddiga xalinta khilaafaadka iyo asaga ay aad isugu talahaan kursiga Yaasiin Faray taliyaha ku meel gaarka ah ee NISA oo galmudug lagu doortay ra'iisul wasaaruhu aad hor istaagay in guddiga xalinta khilaafaadka aysan ku dhawaaqin kursiga ninkaas inuu ku soo baxay madaxtooyadu ka soo horjeeday waxay rabtay ninkan in lagu dhawaaqo kursiga inuu ku soo baxay waa mid kamid ah waxyaabaha khilaafka hadda keenay bal dhaha hadii saan la isugu sii dhadhaganaado oo waxa weeye saan ay wax u socdaan oo hadda doorashadii oo socoto markii horeba qaab socodkeeda iyo sidii loo loodinayay shaki badan iyo maartay cabasho badan ay ka jirtay haddana hadii khilaafkan u yimaado soo cimri dheer iyo madaxweyne maxamed Abdullahi Farmaajo inuu halka xafiiskiisa joogo oo waxa weeye ma keenayso laba arrimood oo miiska saaran khilaafku kolba horta waa niman israaba wax la isku khilaafay lama waayaba laakiin laba arrimood oo miiska saaran in dawladnimadii ay burburto oo Muqdisho la isku galgasho oo wiifta ay ka dhacdo Ilaahay nooma keenay intii yareed la haystay amniga ahayd iyo dawladnimada ay meesha ka baxdo
oo la isku faraxasho iyo in farmaajo sii joogo ilaa doorasho quman intay ka dhacayso madaxweyne kala wareegaya xilka inuu sii joogo iyo in meeshan lagu kala tago wax ka dhaxeeya ma jirto kaay dooranayaan mucaaradku iyagay u taalaa kuwa dooranaya madaxweynuhuna isagay u taalaa labadoodana waa lagula xisaabtami doonaa waxa hadda maanta dhaca iyo bartay taagan tahay nin waliba mas'uuliyadiisa intuu ka yeesho yuu qaadan doonaa kow mas'uuliyadda ugu horeysana waxaa qaadan doona madaxweynaha jamhuuriyadda waagii aan dhihi jiray madaxweynihii hore waan soo dhaafnay hadda mucaaradkiisa dhiibay baan ku jiraa madaxweynaha hadda wax kasta oo dhaca mas'uuliyaddeeda isaga kow qaadan doona waayo waxa laga rabay doorasho ma sameeynin muddo 2 sano uu yiri waa ku darsanayaa si dadban buu ugu darsaday iyadana wax ma sameeynin oo hadana tu kala dheeriyo si rabaa hadii muqdisho lagu kala tago ay balaaya ka dhacdana inta ugu badan isaga qaadan inta dambana gacmaha wax geystaa qaadan waka وهجاك هذا ما سيهاي قولي داوديال قضب كان أن كأجي نوجه اللباد دجال سياسات كأوده حياة مدحون محمد عبد الله فرماجة يرئيس وزراء روبل أنت سينكسو جبهنا وحي حقي معلومات كسو كنا ندبي يعني كلا ذا جدنا هدو به ودرا أقلاده إيش كوايا بوجيجا تاني كلنا تمنى بدقل